cabdalle yuusuf hanuuniye barbaarkii ku dhashay magaalada ceelbuur ee hibadiisa faneed ku qabsaday magaalada muqdisho iyo guud ahaan geyiga soomaalida. hanuuniye waxa uu lahaa fan dhammaystiran, si kale haddaan u dhigno waxa uu ahaa mucjisadii fanka soomaalida. waxa uu lahaa hal abuur wax ku soo kordhiyay heesaha soomaalida. wuxuu ahaa abwaan, mulaxan iyo kabaniiste, marna waxa uu ahaa heesaa cajiib ah. marba halka laga eego waxa uu noqonayaa kuwa ugu sarreeya jaadkiisa suugaanta soomaalida. hanuuniye waxa uu ahaa nin necab tartanka iyo waxyaabaha la nooca ah, kuwaasi oo aan xaqiiqdii ahayn waxaan wanaagsanayn. qofku hadduu hibe leeyahay uma baahna in la dhaho waa tartamaysaa, ee isaga in laga codsado ayaa mudan. kolkii uu diiday tartankii iyo howlihii uusan rabin, waa ay diiday kooxdii waaberi, albaabkana waa ay ka soo xidhatay. isna uma joojin, ee waa uu iska sii watay howlihiisii, sababtoo ah waxa uu cindigiisa ku ogaa hibadiisa fanad inaysan qarin karin koox is-aruursatay ama u heshiisay. waxa ay soo saareen riwaayaddii ugu horraysay isaga iyo koox kale oo aan markaa shaac bixin, waana riwaayaddii uu kula baxay magaca hanuuniye. riwaayaddaasi waxa ay ka hadlaysaa dhallinyarada miyiga ka yimaada ee magaalada soo galo siday u qarisa mawjadaha magaaladu, kuwaasi oo looga baqayo inay tareenka balwadda raacaan oo derbiyada ku cabbaan daroogada. doorkaas hanuuninta ah ayuu qaatay, waana halka uu ka raacay magaca dhabta ah ee hanuuniye. waana hanuuniye. waxaad ogaanaysaa inuu hanuuniye ahaa kolka aad dhegaysato guri ku dumay iyo dalkii idinkaa qarribay, sababtoo ah hanuuniye waxa uu ahaa qof mar walba wanaagga ka shaqeeyo. intaas kadib hanuuniye waxa uu noqday hiboole fankiisa aan qarsoomin iyo mucjiso yar oo hooballadii waaweynaa oo jooga qabsaday magaalada muqdisho. heesihii ugu horreeyey ee uu qaado weliba uu gacantiisa ku tunto hanuuniye 1978 ayuu soo saaray albumkii qariye kooxihii waaweynaa ee kolkii hore diiday, waana albumkii caanka ahaa ee baddu laydh qabooba. heesihii ku jiray albumkan si weyn ayay u baaheen, suuqana caan ayay ka noqdeen, aad ayaana loo xiiseeyey. hanuuniye waa ay soo shaacbaxday hibadiisii aan la qarin karin ee ku abuurayd. waxa uu noqday mid ay u kala tartamaan kooxihii jiray oo dhan, xitaa waa beridii shalay albaabka ka soo xidhatay. hanuuniye codka toolmoon iyo hibadiisa dabiiciga waxaa u dheereed ruuxaaniyad u gaar ah iyo in laxamadiisu ay ahaayeen jaad gooniya oo dareen gaara lagu ladhay. waxaa xusid mudan in kooxdii waaberi ee uu markii hore diidmada kala kulmay inay u baahdeen, waxaana maamulka kooxdaasi lagu amray in la keeno kooxda mucjisadan cusub ee suuqiiba qabsatay, sababtoo ah maamulka kooxdaasi waxay istuseen in ninkani haddii uu ku biiro koox kale suuqa waaberi uu xirmayo. waaberi waxay u tafaxayteen in ninkaasi la keeno. rag badan ayaa isku dayey inay hanuuniye tashkiiliyaan, kuwaas oo qaybaba koox ka socotay. cusmaan gacanlow oo rabay inuu safar dibadda u baxo oo ay hanuuniye saaxiib ahaayeen ayaa fasax weydiistay maamulka kooxda waaberi, iyagiina waxay xujo uga dhigeen in booskiisa uu hanuuniye keeno si loo fasaxo. sidaas ayuuna hanuuniye uga mid noqday kooxdii uu markii hore diidmada kala kulmay ee waaberi.